boqolaal muslimiin ayaa salaada ciidul adxa ku tukaday masaajidka weyn ee xaafadda Daarusalaam City kuwa oo damaashaadka ciidul adxa kala qayb qaadanayay muslimiinta caalamka waxaana ka soo qayb galay damaashaadka maalinta koowaad ee ciidda culamo waxgarad qurbo joog dalka dib ugu soo noqday waalidiin caruur iyo dadweyne ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolada u dhow qaarkood dukashada salaada ciidda kadib ayaa qaar ka mid ah muslimiinta halka ku tukada waxay hambaliyo salaam u direen bulshada caalamka gaar ahaan muslimiinta iyo eheladooda bismillaah alxamdulillah ka magacayga waa Saalim Axmed Xasan degmada ka soo iiday waa degmada Holwadaag maanta aad ayaan faraxsanahay waa maalintii muslimiinta waa maalintii farxad badneed gaar ahaan waxaan islaahay ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta meel walba joogaan ciid wanaagsan hambaliyo iyo dhammaan inta muslimiin ah waa Xasan Cabdullaahi Canshuur ummadda muslimiinta meel walba joogaan waxaa leeyahay kullu caam wa antum bikhair waxaan u soo ciideysanay Daarusalaam City muslimiinta meel walba joogaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Xasan Daahir Shuuriye waxaan ka mid ahay dadkii maanta u soo ciideystay xaafadda Daarusalaam waxaan leeyahay muslimiinta dhan kullu caam wa antum bikhair waxaan si gaar halkan uga salaamayaa maamulka telefishinka Bulsha TV waxaan kaloo sidoo kale ka salaamayaa maamulka Daarusalaam waxaan kaloo salaamayaa dhammaan muslimiinta dhan oo aan leeyahay kullu caam wa antum bikhair magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Faarax waxaan ka imaadaa degmada Holwadaag waxaan u soo ciideysanay Daarusalaam aad iyo aad waa faraxsanahay maanta farxadeena wax la macnaa la koobi kara ma shucuurteena waa kacsanahay maanta waa maalin weyn ummadda muslimiinta dhammaantood waad u faraxsiin ma fahamta marka ma sha Allah waxa waa farxadeena aad iyo aad u koobantahay meel walba joog muslimiinta waxa leeyahay kullu caam wa antum bikhair ma sha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh magacayga Aamina Maxamuud Sheekh Cabdullaahi waaye aad baan idin salaamayaa dhammaantiin muslimiinta dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay maanta ciidul adxa ayadoo tahay inaan ku ciido magaaladayda Muqdisho markii ugu horeysay Muqdisho sida ciidan ku ciido aad baan ugu faraxsanahay walaashayda qaaliga aan dunida ugu jecel Firdawsa Cabdi Daahir iyo caruurteeda maanta la ciidaya dhammaan familigeyga waxaan leeyahay ciid wanaagsan maadaama ay baldoyna jiraan ayagana ciid mubaarak ciid caafiya insha Allah aad oo maasantiin adinkana ciid wanaagsan awalna assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh magacaygu waxa waa Shakri Cabdullaahi Cali waxaan deganaa Daarusalaam maanta waxaan ku soo ciiday masaajidka weynka Daarusalaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi تعالى وبركاته وأكون فرحسنا فرحة إيدا وحلا قاعدنا دمعشاتك ددوينها بسم الله عيد ونكسن مركورة إمام هذا يو شغال هذا مرك لبعض دمان مدة مسلمين تأه ميرو بأدوية عيد يعني ما أنت فرص بدن عيد الأضحى المبارك مدة الصوماليات خاصة مدة رمض الشوق أنت يقول عيدي سديها كفرص بدن دارسلام محلي هاي عيد ونكسن waxaan ka nimid aniga iyo caruurteyda wadanka Holland waxaan deganahay wadankeeni hooyo gaar ahaan Daarusalaam maanta dadtan farxad aan la soo koobi karin aan maaragtay wadankeeni hooyo aan la ciidnay ummadda islaamka waxaan salaamayaa ummadda islaamka inta Soomaali oo afka Soomaali ku wada hadasho oo islaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidan maanta ma la soo koobi karo farxadda aan ku wada ciidnay iyo amaanka iyo nicmadda Ilaahay oo na siiyay meeshaan hadeertan caruurteydii oo ayagana idin maaragtay idin salaamayso Nabil baba intee ka timid assalaamu calaykum waraxmatullaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi magaca Nabil intee ka timid Holland intee degan tahay Daarusalaam waxaan salaamaa ummadda islaamka waxaan salaamaa ummadda islaamka inta Soomaaliga ka hadasho السلام عليكم ورحمة الله صابر مقعة صابر محل قدرة محمد أبو قرة انت انت Daarusalaam انت كتمت Holland maxaa rajaynaysaa wadankaaga maanta si ku ciiday farxad iyo bashbash iyo barwaaq maxaa salaamaysaa inta Soomaali afka ka hadasho oo islaamka waa idin salaamay anoo idinku salaamay anoo idinku salaamay magaca waxaa maanta bashbash iyo farxad ku ciidnay wadankeeni iyo الله ما هذا سكله مانتا وحن فرحة عيدة أن وصل دمشق تجني بيرت دار السلام مقالة مقدشو
kuna taal degmada Yaaqshiid ee duleedka magaalada Muqdisho waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan hambalyo u diro ku aadan Ciidul Adha waxaan leeyahay hambalyo kullu caam wa antum bikhayr maanteeda ciideeda nabad iyo barwaaqo iyo bashbash Allah nagu gaarsiiyo runtii marka timaado beerta Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho waxa dareemaysaa farxad iyo dalku inuu horumar u sii socdo tilaabana maalinba meel lagu sii hooyanayo waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin ganacsatadii Soomaaliyeed ee taabagelisay beertan oo ahayd awal goof cidla oo waxba ka bixin haddana aad arkaysaan quruxda iyo barwaaqada ka muuqato dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan kale halkan rabaa inaan uga mahad celiyo telefishinka bulsho oo ummadda Soomaaliyeed had walba u soo gudbiya waxyaabihii ku cusub iyo dhacdooyin kasta oo ku soo kordha xaaladda Soomaaliya caruurta ayaa daawasho iyo raaxaysi u tagay beerta weyn ee nasashada waxaana lagu soo bandhigay gawaarida caruurta ku ciyaaraan fardaha qalabka wiifowga iyo waxyaabo kala duwan dhammaan deegaanka Salaama City waxaa maalgelisay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Muuse Maxamuud Jiisow Bulsho TV Muqdisho